kooxda xarakada al-shabaab ayaa mar kale ku dhawaad 100 qof oo erga ku soo bandhigtay degmada Xaardheer ee gobolka Mudug. Odayaashan oo tiraahan gaadhaya ilaa 90 qof ayay kooxda xarakada al-shabaab sheegtay inay cafis u fidisay isla markaasina ay toobad keeneen. Waa sida ay hadalkooda ku sheegeen kooxda xarakada al-shabaab. Mashaacin kooxda xarakada al-shabaab meelaha ay ka kala yimaadeen odayaashan ay cafiska u fidisay, balse warbaahinta ayaa xaqiijisay inay ergadani u badan yihiin kuwa ka soo jeeda gobolka Galmudug. Munaasabada lagu soo bandhigay oo ahayd mid ballaaran ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarsareysa kooxda xarakada al-shabaab oo iyadu alaaba qaraxyo iyo dilal kala duwan ka geysata dalka Soomaaliya, isla markaasina khudbado kala duwan u jeediyay ergada ay cafiska u fidiyeen. Al-shabaab ayaa horay gobolada Hiiraan iyo Bay ugu soo bandhigay boqolaal erga oo ay ku jiraan 11 dumar ah oo kuwaas oo wax ka soo doortay baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya. bayaanka ay kooxda al-shabaab ee ka dhanka odayaasha ayaa soo baxay 15 bishii July waxaana fuliyay ku dhawaad 1000 erga oo lagu soo bandhigay degmooyinkooda. waa Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame, telefishinka Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.